بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله walaal waa mahadsantahay adiga iyo tiimka Golis runtii soo dhaweynta iyo wada shaqeynta aad nagala shaqeyseen madashan inay guuleysato garab istaagteen oo aad hil iyo hooba runtii ku bixiseen aadan uga mahad celinaynaa waxaad ka mid tihiin shirkadaha ugu waaweyn guud ahaan dalka gaar ahaan deegaankan Puntland marka inaad kaalintiina ka qaadateen runtii anigu wasiiraan ahaa wasiirka qorsheynta oo arrimaha dhaqaalaha ka shaqeyn jiray waxaan aad u aaminsanaa kaalinta ganacsatadu in ay aad uga weyn tahay sida aan u qiimeeyno haddaan nahay bulsho haddaan nahay dalkan 30 sano oo dawladnimadeenu marna ay maqnayd marna ay nugleyd tiirarka bulshadu ay ku taagneyd runtii waxay ahayd ganacsatada oo intaas adeegyadii aan u baahnayn not only inay noo fududeynayeen laakiin si aad u jaban runtii ugu fududeynayay markii dhibaato dhacdana kaalin runtii xoog leh ka qaadanayay marka waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in kaalintaas sii wadaan sii xoojisaan kaalin weyn ayaa idin bannaan waana mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim runtii shirkadda Golis iyo ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo shirkad kaleba hadaysa shirkan ayagu runtii u soo gurman ma u hirgaleen si gaar ah baan marka waxaan rabaa hadda inaan halkan ugu xuso kaalinta shirkadda Golis oo runtii anigu madaxdooda inkastoo dad aan ka aqaanay laakiin inaan hor fariiso intii hadda garow aan joogay qabanqaabada aan ku jirnay ay ugu horeysay waraaqan baan u dirnay wayna noo soo gurmadeen oo si goobannimo ah oo sharaf leh oo hagarbaxal inoogu soo gurmadeen oo dhaqaalan accounts-ka noogu shubeen oo injineeradoodii iyo khubaradoodii noogu soo direen si ay u fududaato ama u hirgasho tabinta tooska ah oo daafaha adduunka shirka looga daawanayo iyagoo lacag la'aan noogu sameeyay internetka ugu ballaarnaa oo ugu runtii ugu xoog badnaana ay noo soo dhigeen ilaa qalab ay boosaaso iyo meelo kale xataa ka dooneen oo habeen loo guureeyay si macnaha meesha markii shirkan ugu talagalay hore ay u noqotay meel runtii idaacadda TV-ga qaranka idaacadda Puntland iyo idaacadaha kaleba ay toos uga sii deyn karaan waa maasantahay runtii madaxda iyo waxaan u mahad celinayaa shirkadda Golis dhammaan sida oo hagar la'aanta ay noola dubteen maalmihii ugu dambeeyay dhan intii uu socday shirkan kulankan madasha wada tashiga ee soo qaban qaabiyay macadka Heritage runtii shirkadda Golis waxay hadii goor noogu taagneed sidii ay nooga xaqabtiri lahaayeen baahida aan u qabnay internetka ha noqoto warbaahintii oo muuqaaladii tooska aan gudbinaynay waana idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaan helnay adeegii ku haboonaa oo aan dhihi karno la'aantoodana hadii internetka shirkadda Golis aysan noo fududeen waa nagu adkaan lahayd inaan gaarno malaayiinta ilaa shalay ilaa maanta hadda ka hadlayo shirkeena oo ku jira 40 milyan oo Soomaalida oo meel walba joogto oo muuqaaladii daawanaya oo warbaahintii qaybaheeda kala duwan runtii shirkadda Golis waxay noo fududeysay adeeg aad u weyn inkastoo maalintii ugu horeysay markii meeshii hoolkii koowaad aan imaanay waxay si xaqab tirlaan ay nooga hagaajiyeen internetkiisa qaybihiisa kala duwanaa kadibna markaan imaanay hadda hoolkan BSU-na meel walba aan u baahnayna waxay noogu sameeyeen adeegii aan u baahneen marka madaxda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee shirkadda Golis mahad weyn ha ka gaarto aadaan u mahadsantihiin macadka Heritage-na wuxuu u duuban yahay mar walba inuu ka shaqeeyo ama uu soo saaro halyeeyada ama horumarinta waxyaabaha bulshada Soomaalida u ah marka halkaas ayaan ka wada soconayna waa mahadsantahay shirkan waxa lagu qaban jiray dalka Djibouti waa shir sanadlaah nasiib wanaag Puntland baa u yeelatay caasimadda Garowe runtiina maqaam fiican iyo maamuus fiican baa shacabka Puntland ay ku soo dhaweeyeen iyo madaxdiisuba waxaan iyadana si gaar ah ugu mahad celinayaa shirkadda Golis oo hor iyo dibba adeeg baahsan iyo dadaal badan deegaanadan shirkadaha ugu mudana oo naala badan meelihii aan la gaari karin oo fogfogaa oo badaha iyo muxuu ahaa qararka ahaayo jidadka aan lahayn oo aad u fogaa inay magaranaysayo anteenooyin ka taagtay oo maanta ninka xoololeyda oo safraya oo soconaya uu muxuu ahaa isagoo meel kasta maraya uu meeshii uu cawaasan karo
marka hadday dhiba haysato uu cawaansanayo xataa xoolihii baa lagu baadi doontay intaasu intii guud ay awalba deegaanadan ka qabanaysay ahayd waan ugu mahadnaqaynay shirkan hawlaha ay ka qabatay oo ka qaybgalka oo dhinac kasta leh oo baahinta leh oo muxuu ahaa taageerada leh oo dadaalka joogtada leh iyadoo shaqaalaheedu si hufan ay u soo dhaweeyeenna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waana qabatay abaartoodna way ahayd annaguna waa ugu mahad celinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim haddaanu nahay waaxda suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Golis waxaa farxad weyn inoo ah inuu kelmadda marti noogu yahay wasiirka caafimaadka Puntland wasiir jaamac run ahaantii dawladda Puntland waxaan hadda joognaa shirkii sanadlaha ahaa Heritage oo u socda si qurux badan oo la agaasimay si qurux badan oo juhdi la galiyay oo la muujiyay bilicda iyo ammaanka caasimadda dawladda Puntland aad iyo aad baan dawladda uga mahad celinaynaa shaqada ay qabatay waxaan ka rajaynaynaa insha Allah tacaala shirar kale oo ka sii waaweyn inay na soo martiyaan waxaan ku wareejinayaa wasiir jaamac sidoo asaguna kelmadiisa u yiraahdo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa shirkadda isgaarsiinta ee Golis gaar ahaan qaybteeda suuqgeynta oo hadda halkan nala joogta waxaan runtii uga mahad celinayaa shirkadda Golis sida mugale ay uga qayb qaateen inuu shirkani qabsoomo shirkani waa shir aad u ballaaran waa shir dad badan isugu yimaadeen oo dadweyne iyo mas'uuliyiin iyo madax sarsareba leh waa shir runtii indhaha Soomaalida iyo indhaha caalamkuba ay ku soo jeedaan sharaf bay noo tahay haddaanu nahay dawladda Puntland inaanu shirkan annagu aanu saldhig u nahay oo aanu hostigarayno Heritage-na aanu kala shaqeyno sidii shirkani uu u suuro gali lahaa hawlkan lagu shirayo iyo waxyaabaha ku hareeraysan oo dhan hawl badan baa gashay hay'ado fara badan oo kuwa khaas loo leeyahay iyo shirkado waaweyn iyo hay'adaha dawliga ah runtii tacab badan baa ka galay shirkadda Golis waxay ku jirtaa shirkadaha runtii tacab badan ku bixiyay inuu shirkani uu qabsoomo isgaarsiintiisa iyo internetadiisa iyo hawlihiisa warbaahinadiisu inay gaaraan meeshii loogu talagalay oo ay dadku la socdaan qayb weyn bay ka ahayd aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kale ugu mahad celinaynaa shirkadda Golis sidii ay uga qayb qaateen wada shaqeeyeen wasaaradda caafimaadka qayb uga ahaayeen taabagelinta call centerka ama meesha ay dadku soo wacayaan marka ay isaga shakiyaan xanuunkan COVID-19ka waxaanuna ka filaynaa inay sidaas oo kale nagala shaqeeyaan waxyaalaha muhiimka ah ee wasaaradda caafimaadka ka dhiman si ay xanuunkan safmarka ee COVID-19ka ay ula dagaalanto hadii la haydmo waxaan ku soo gabagabeynayaa mar labaad aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadda Golis hawshan wanaagsan ee ay ka qabatay qabsoomidda shirkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii shirkan madashan aragti wadaagga sanadlaha ee qaban jiray macadka Heritage oo sanad kasta inta badan dalka dibadiisa lagu qaban jiray sanadkan ka dhacaysa Garowe runtii waa wax lagu faano laguna farxo muujinaysana amniga iyo xasiloonida ka jirta iyo maaragtay in ay shirarkan iyo kuwa ka sareeyaba lagu qaban karo Garowe waxaanu runtii si fiican baa loo abaabulay waxaan uga mahad celinaynaa shirkadda Golis oo waxyaalo fara badan ka qayb qaata horumarinta sidii doorkii ay ku lahayd maaragtay shirka iyo qabsoomidiisa waan uga mahad celinaynaa waana ku mahadsan yihiin waana shirkad runtii maxalli oo taageerta arrimahan maaragtay iyo arrimo kale oo horumarineed aad baa u mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah maanta oo bisha December tahay 31 waxaan halkaan isugu nimi shirkii Heritage ay qaban qaabisay oo la isaga yimid dacalaha daafadaha adduunka ama dibadda ha ahaato ama dalka gudihiisa ha ahaato hal doorkii iyo kariimkii iyo madaxdii dalka isugu yimaadeen taas waxa suurta galiyay runtii shirkaddan Golis oo ka mid ah runtii hantida dalku leeyahay mar walbana haddii shir jiro iyo barnaamij kasta oo jira nooc kastaba ha ahaadee ama mid TV ahaado oo live u baxaya ama mid ay ka caawmaan internet ha ahaato
ama mid ay dhaqaalaha kaga caawin ha noqotee runtii waxa weeye aad iyo aad anigoo ku hadlaya magaca afka dawladda waxaan u mahad celinayaa shirkadda Golis sida mugga leh oo ay mar walba uga qayb qaadato arrimaha ijtimaaciga oo ka jira Puntland oo ay si xoog leh oo mug leh uga qayb qaadato waxaan leenahay shirkadda Golis waa mahadsantihiin waxaanu rajaynaynaa waxqabadkiinu intaas iyo in ka badanba in laydinka arko waxaan rajaynaynaa wada shaqayn dhow inaad la yeelataan shacabka iyo dawladda Puntland waxaad tihiin hantidii dalku ula yeebaad tihiin marka runtii mar koowaad iyo mar labaadba waxaan u mahadnaqayaa isxilqaanka iyo runtii wanaagga shirkadda Golis ay mar walba la garab taagan tahay hiil iyo hooba dadkeeda iyo dawladdeeda intaas markaan ka baxo runtii shirkan maanta waa shir muhiim ah oo aad iyo aad muhiim u ahaa oo heritage ay maanta in ka qaban qaabisay Puntland awalna lagu qaban jiray Djibouti iyagana runtii aad baan ugu mahadnaqayaa shirkana waxaan rajaynayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan aad iyo aad waxaan ku soo gunaanadayaa Golis waan ku faraxsanahay waana runtii hawlaha ay qabanaysana dalka u haysana waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad agaasimaha iyo shirkadda Golis runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ugu mahadcelinayaa fursaddan ay siiyeen inaan kelmad mahadnaqa iyo bogaadina aan u soo jeediyo shirkadda Golis shirkadda Golis runtii waa shirkad maxalli ah ganacsato reer Puntland ay maalkooda geliyeen waa shirkadda ugu ballaaran ee dalka uguna weyn uguna faca weyn muddo dheer shaqaynaysay u adeegaysay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland wax badan oo runtii la taaban karana ka qabtay bulshada door weyn oo kaalin weyn ay ugu jira waxaan kuma mataali karaa doorka ay ugu jirto dawladdu door la mid ah in shirkadda Golis ay mararka qaybtooda u taagan tahay ama ha noqoto u gargaaridda bulshada dhibaataysan iyo mararka qaybta dawladda ay ka caawiso gudashada waajibaadkooda bulshadu eegmatay waa shirkad mataana la ah runtii dawladda iyo mar walba garab taagan haddeer ugu dambeysay waxaan ka wada shaqaynaynay dhibaatada ka jirtay shilinka Soomaaliga ah door facaal ah oo muuqda bay runtii shirkaddu ka geysatay oo ogana mahadnaqaynaa waliba go'aano adag oo culays ku ah shirkadda dhaqaalaheeda ay dawladdu ku soo rogtay iyana ay si qurux badan oo iyagoo bulshada u daneynaya mar walba dhegta ugu raadinayaan go'aanada inay fuliyaan muddada hadda shirkan aan ku jirnana adeeg online ah inuu shirku online noqdo inuu shirku qurux badnaado inuu bilicda shirkan oo Puntland martigelisay inay Golis aad u bisho oo shirkan u qurux badnaado ay kaalin weyn ka qaadatay qof walba ay gudaha si online ah ayuu internet ku helayaa shirkana lagu baahinayay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waana ka filaynaa inay adeegyadan iyo adeegyo la midaba ay sii wadi doonaan siina korna u sii qaadi doonaan kaalinta bulshada kaga jiraan aad iyo aad buu mahadsantahay